sida aan idinkula wadaagay wararkeennii hore madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka mid ahaa qodobada uu uga soo baxay shirkii ka socday deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan la kulanka wafdi ka socda Imaaraadka Carabta taas oo si rasmi ah u dhacday xogtii aan idin soo gudbinay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay wufuud ka socotay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. si gaar ah kulanka wuxuu u dhaxmaray wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka waxayna ka wada hadleen qodobo ay ka mid tahay sidii loo sii xoojin lahaa wada hadal bishii hore dhaxmaray labada madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Imaaraadka Carabta. kulankaas oo la sheegay inuu u dhacay qaab telefoon ahaan hayeeshee waxaan ogaanay in uu ka horeeyay kulan kale oo toos ay u wada kulmeen labada dhinac. wasiiru dawlaha ayaa sidoo kale la sheegay in uu dhambaal ka siday madaxweynaha dalkiisa isla markaana kulamada qayb ay ka yihiin xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed dhinaca amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dal. macluumaadkeena iyo wararkeennii hore waxaan idinku sheegay in madaxweynaha soo laabashadiisa xarunta Villa Soomaaliya qayb ay ka tahay qaabilitaanka wufuudda uu ka mid yahay wafdiga uu hogaaminayay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta kaas oo horey xogtii aan gudbinay u dhawowday. waxaa inta badan halkan idinkula wadaago xogo iyo macluumaad qarsoodi ah taas oo warbaahinta magaalada caasimadda ee Muqdisho intooda ugu badan aysan ku dhiiran soo gudbinteeda. kulankan gaarka ah ee ka dhacay Villa Soomaaliya ayaa looga hadlay sida hordhiciisa aan ogaanay marka laga tago qodobada aan kor ku soo xusay in dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaro dalka isutaga Imaaraadka Carabta isla markaana laga hadlo qodobo ka duwan kuwii horey ay uga wada hadleen labada dhinac. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxaan ogaanay in marka laga tago wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta iyo kulankii uu la qaatay in sidoo kale maalmaha soo socda uu qaabili doono wufuud heer caalami ah kuwaas oo soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.